tani waa sheekada darawalkii da'da yaraa ee la magac baxday Sheekeeye Maxamed Maxamuud Garre oo ku magac dheer Sheekeeye waa mid ka mid ah dhalaanka soo korayay ku nool deegaanka Gargoore ka tirsan gobolka Bari ee dowladda Puntland. Maxamed marka aad muuqaalkiisa aragto waxa aad wajigiisa ka dareemaysaa inuu yahay wiil aad u daayar, balse taa waxa uu dheer inuu yahay darawal kaxeeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan. waxa uuna safaro dhaadheer u aadaa qaar ka mid ah deegaanada Puntland. mar aanu safar shaqo u tagnay deegaanka Gargoore ayaanu ku kulannay isaga oo ku guda jira howl maalmeedkiisa shaqo. waxa aan ka wada sheekaysanay xirfadiisa darawalnimo, halka ay ka soo bilaamatay iyo heerarkiisa kala duwan ee nolosha. bismillaahi rahmaani rahiim. aan gaariga waxa ku soo bartay magaalada Gargoore. magacaygan waxa la dhahaa Maxamed Maxamuud Garre, naanaysteena Sheekeeye. gaariga waxa weeyii markaan barto waxaan ahaa nin yar, waxaan jiray 9 sano. hadeerna waxa jiraa 15 sano. waxay bilaabay waxay ahayd taariikhnaayo kala waarkayo iga yarsan waa wada. ama marka hore waxa ku bartay isbiir, hadeerna automatic aan wadaana. doonka iga yar isbiirka ma wado, kan automatic aan wada. gaariga ugu horeeyo isbiir wuxuu ahaa gaari isku raayo isbiir. track ugu horeeyo agasho magaalada Boosaaso aan gol track dheer inta Gargoore ka tagay. Gargoore ka tagtay Boosaaso. Boosaaso. marka magaalada Boosaaso tagtay nin dhalinyaro ah baa tahay. dadkii magaalada ama ciidanka magaalada maxay ku yiraahdeen? ciidanka taroolka waxaan midin yar baa leeyahay, cilmi baa taagay. Gooran dadka deegaanka ku kula nool ee Gargoore sida ku la dhaqmaan kullu waa yaqaan darawal. isu ka aaminay maxaa tahay aan noqon darawal caana oo dunida laga yaqaan. wax ma barataa barashada? kalaaskeemata afraad. Sheekeeye kuma koobna xirfadda darawalnimo, balse dhanka kale waa arday wax ka barta deegaanka uu ku nool yahay. sidoo kale waxa uu ku haminayaa inuu noqdo darawal caan ah oo dunidu ay wada taqaan. Cabdiweli Maxamed Barre, Sahal Cable TV, magaalada Boosaaso. ku xirnow IBS Bank.